يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جيب كله waxaa kamida shalay markii 10ka aan ka baxay casharkan waa kii ku saabsanaa qaybo badan ee kamida ru'yada nabiga sallallahu alayhi wasallam baraka alayhi man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqada fa inna shaytana la yatamathalu bi marka gabar casharka dhageysanaysay oo Mareykan dadka casharka uga tixan kamid ahayd ayaa isla markiiba ay soo wacday guriga markaan tagay markaasay waxay igu tiri usbuucan waxaan ku ru'yooday nabiga sallallahu alayhi wasallam baraka alayhi ayaan ku ru'yoodan arkay tiri marka waxaan ku weydiinay tiri ru'yadii xoogaa qayb kamida ayaa mugdi iiga jira marka bal inaad ii fasirto oo qayba iga naxisay tiri ru'yadii kamida bal sheegan ru'yadaas maxay tahay waxay tiri masjid waxaan ku ru'yooday tiri isagoo nabiga sallallahu alayhi wasallam masaajid ku dhex jira dhinaca bidixda iyo midigtana waxa ka kala taagnaa سيدنا أبو بكر iyo سيدنا عمر ayaa ka kala taagnaa tir marka masaajidkii alla iga celinahay tir waxa leeyahay nabiga ha u gelin ee sug ka bacdina hooyaday ayaa gacanta ay qabatay tir gabadha maxaad u celinaysaan markaas nabigii la ii geeyay sallallahu alayhi wasallam baraka alayhi nabiga sallallahu alayhi wasallam baraka alayhi waxay tir markii la ii geeyay ayaan waxaan damcay nabiga inaan ku boodo sallallahu alayhi wasallam baraka alayhi oo nabiga aan shumiyo ayaan isku dayay markaas saxaabadii agteeda taagneed waxay shaki iga jiraa inay tiri Abu Bakar ama inay tiri Umar labadooda mid kamida ayaa iga celiyay tiri nabiga sallallahu alayhi wasallam oo tiri ma shuminaysid ka joog marka waxaan ka naxay tiri shuminta nabiga la ii diiday sallallahu alayhi wasallam sheekhu ma dhiba taas iigu jira ru'yadii war adiga ba liibantaan maxaa dhiba taas waaba dhamaataan adii bishaaro iyo khayr iyo liibaan adigaaba haystee waxa lagugu diiday nabiga sallallahu alayhi wasallam inaad shumiso waxa weeye shareecada nabiga sallallahu alayhi wasallam intii uu joogay haweenay ajnabiga nabiga sallallahu alayhi wasallam waligii gacantiisa ma taaban jirkiisana ma taaban nabiga sallallahu alayhi wasallam marka tadbiiqii shareecada inaad ku dhaqanto oo dhaqan geliso ayaaba lagugu baraarujinayay amaama rasuulillah sallallahu alayhi wasallam marka iyadaaba bishaaro kale aan ku yiri iyada bishaaro kale oo sharciga inaadan khilaafin ayaa lagugu bishaareynayay nabiga hortiisa sallallahu alayhi wasallam marka yaani waxaan la yaabay muwaafaqada yaani ru'yadii nabiga aan ka sheekeynay casharkii shalay isla markii soo wacday waxay tiri ru'yada waxay xasuusiyay casharkaad aqrinaysay ayaa isoo xasuustay tiri waxa kale oo jiray sidaas oo kale sheekh la dhihi jiray Abu Ishaq Ash-Shirazi sheekhan iskale kitaabkan at-tanbih iyo kitaabkan al-muhaddab oo Imam Nawawi uu sharxay qisadiisu waa mashhuur oo sir calaaman wala uu soo guuriyay Tajuddin as-Subkina wuxuu ku soo guuriyay dabaqaatu Shaafi'iyya al-kubra ayuu ku soo guuriyay wuxuu yiri nabigan ru'yo ku arkay sallallahu alayhi wasallam baraka alayhi markaas wuxuu ugu yiri ya sheekh uu ugu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam ya sheekh marka Abu Ishaq Ash-Shirazi wuxuu yiri wax la igu yeero waxaan ugu jecelahay uu yiri ya sheekh in la yiraahdo لأنه nabiga igu yeeray sallallahu alayhi wasallam lafdiga nabiga ugu yeeray ayaa ugu jecelahay yiri in la igu yeero ya sheekh